madaxweynayaashii hore xubnaha baarlamaanada ee matala beesha halkan ku sugan culamaa u diinka duubabka dhaqanka aqoon-yahanada dhalinyarada dumarka mas-uuliyiinta iyo marti sharafta kale walaalayaal iyo waalid mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaan idinku salaamayaa maqaamka iyo brotokoolka aad mudan tihiin dhammaantiin waa ku mahadsan tihiin ajiibidda aad ajiibteen kasoo qaybgalka kulankan barakaysan ee ay qabanayso beesha Mudulood waxaan u mahad celinayaa guddigii soo qaban qaabiyay shirka iyo cid kasta oo gacan ka geysatay qabsoomidiisa maanta waxaa sharaf u ah mu'asasada Macallim Nuur inay martigeliso kulanka wada tashiga beelweynta Mudulood haddii aan taariikh kooban idinka siiyo mu'asasada Macallim Nuur waxay ka shaqaysaa barista quraanka faafinta aqoonta diinta cilmiga iyo dib u heshiisiinta mu'asasada Macallim Nuur waxay jirtaa 78 sano waxaa la aasaasay 1942 waalidkeen Allah u naxariisto Macallim Nuur Maxamed Siyaad oo intiina badan wada taqaaniin qaarkoodna ay soo gaareen ayaa aasaasay wuxuuna sameeyay 17 dugsi quraan wuxuu dhisay 50 masjid wuxuu ka shaqayn jiray dib u heshiisiinta iyo faafinta diinta islaamka wuxuu ahaa qof dalka iyo dadka jecel danahoodana u taagan Allah u naxariistay wuxuu dhintay 2009kii walaalayaal iyo waalid mudanayaal iyo marwooyin shirkan waxa uu daba socdaa shirarkii ka horeeyay ee beelweynta Mudulood qabsatay sida shirkii bishii Febraayo ee 2020kii waxa aan maanta iyo labada maalin ee soo socota hadduu alla idmo halkan u joognaa in beelweynta Mudulood ka tashato aayaheeda waxaa ii muuqda madaxda iyo majmaha Mudulood oo dadka leh talada beesha ahlul xalli wal caqdi kulankan sharafta badan leh ee Mudulood wuxuu i xasuusinayaa hadalkii gabyaa reer carbeed ah oo ahaa ta'ba rimaaxu ida ijtamacna takasuran wa ida iftaraqna takassarat aaxaada oo macnaheedu af Soomaali oo yahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan isuma aanan imaanin fidno iyo fasahaad waxaan isugu nimid kulan khayr leh midnimadoon ah nabadoon ah mustaqbal doon ah Soomaali doon ah iyo barwaaqadoon قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما إلهي وحولها كلن كدتك أنت هذا بدن أي كلمان خير ملهن إلا كلن أو صدقة لغو فرايو معروف لغو سمينايو أما ضد لغو هشيسينايو قفك أنت السمايا أما ميتك مدنه إلهي درتي سدو سمايو أجري وين أسيدون أوده إلهي ولا ليال إي والد مدن يال إي مروين وان هبا أو شك إيجا مجره أبكن أما أوجين مدلود إنه أها أبا بركيسن سببتو أوها أرن كاس لقى قرنا يا بحد إي بركة أي مان تليهين فرع عيسى يدادك كو أبتر صدا سيد أو إلهي قرآن كيس كريم كأه sida uu ilaahay quraankiisa kariimka ah noogu sheegay hadii waalidku fiican yahay caruurtuna way fiican yihiin cinaayada ilaahay baana ilaalinaysa ilaahay wuxuu dhahay wa amma aljidaaru fakana lighulaamayni yatiimayni fi lmadinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuuhuma saalihan qisadii oo khadir iyo nabi muuse calayhi asalaam ku saabsanayd waaye ilma la badbaadiyey maadaama aabahoodii hore u wanaagsanaa ee aayadda ka sheekaynaysaa waxaa tusaale noogu filan in sida la wada og yahay Soomaaliya ay bil ka hor u dabaaldegtay sanad guuradii 60aad 60kaas sano waxaa Soomaaliya soo maray 9 madaxweyne 4 madaxweynayaashaas ka mid ah waxay ka soo jeedaan beelweynta Mudulood waxaa kulankan sharaf u ah in 3 madaxweyne oo beesha ka mid ah oo weli nool ay maanta nala fadhiyaan kulankeena waxaa kaloo beesha ka soo baxay laba ra'iisul wasaare taas waxay ku tusinaysaa culayska iyo mugga beesha ay ku leedahay Soomaalida dhexdeeda haddaad u fiirsataan taariikhda Soomaaliyada xurta ah
ilaa 1960kii waxa aad arkaysaa in madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha beeshan ka soo jeeda uu mid kasta soo baxay waqti adag oo ay Soomaaliya u baahnayd bal fiiriyo waqtigii uu ku soo beegmay Allah u naxariistay madaxweynihii ummadda madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya xorriyadda kadib madaxweyne aadan Cabdullaahi Cusmaan wuxuu ku soo beegmay waqti adag oo xorriyaddii la qaatay isla markaana laba gobol oo aan aqoon isu lahayn midoobeen laakiin alxamdulillaah ilaahay kuma ceebeynin oo si sharaf leh ayuu ku dhammaystay una maareeyay waqtigaas adag madaxweyne cali mahdi oo maanta kulanka jooga ilaahay cimri caafimaad iyo cibaado suuban ha siiyee wuxuu ku soo aaday waqti adag wax weynna wuxuu ka taray dhibaatadii markaas Soomaaliya haysatay ra'iisul wasaare cali maxamed geedi waa la mid oo waa ninkii dowladda Soomaaliya soo gaarsiiyay filla Soomaaliya astaanta hogaaminta Soomaaliya sidoo kale ra'iisul wasaare nuur xasan xuseen nuur cadde Allah u naxariistay oo waqtiga adag ku soo beegmay wuxuu ku guuleystay nabadda midnimada iyo socodsiinta hanaanka dowladnimada madaxweyne shariif sheekh axmed oo maanta kulanka jooga ilaahay cimri caafimaad iyo cibaado suuban ha siiyee wuxuu isna ku soo aaday waqti adag wuxuuna ku guuleystay inuu dhigo aas-aas adag oo dalka kaga saaray hanaankii ku meel gaarnimada ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagana maanta nala jooga ilaahay cimri caafimaad iyo cibaado suuban ha siiyee wuxuu isna ku soo aaday waqti adag oo ah bilowga dowlad rasmi ah oo buuxda oo ka baxday ku meel gaarnimo waa ninka hirgeliyey nidaamka ay Soomaaliya dooratay ee federaalka ah wuxuu xilka ka degay waqtigii uu ka dhamaaday si sharaf leh isaga oo ka tagay Soomaaliya oo federaal leh waan ku kalsoonahay in beeshan soo saari doonto hogaamiyayaal samata bixiya qaranka dhibaatooyinka badan ay la soo gudboonaadeen waxaan filaa in aysan ka badbadin iyo mubaalaqo ahayn haddaan dhaho muwaafaqada beeshan midnimada beeshan xurmaynta beeshan iyo nabadda beeshan waxay muhiim u tahay wadajirka ummadda Soomaaliyeed walaalayaal iyo waalid waxaad ogtihiin iska dhis inaysan ahayn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay in ay deegaan u noqoto caasimadda qaranka Soomaaliyeed walaalayaal iyo waalid mudanayaal iyo marwooyin waxa aan ku kalsoonahay fikradda iyo dareenka wanaagsan ee ay beelaha kale ee Soomaaliya ka haystaan beesha mudulood waa kii sayid maxamed cabdulla xasan yiri Allah u naxariistee dad lama xaqiree darisnimo abgaal baa leh abgaalka uu sayidka ku halqabsanayo waa beel ka mid ah beelweynta mudulood taas oo ah in dadka beeshan ku abtirsada ay dabiiciyan u yihiin dad nabad jecel oo dulqaad badan laakiin haddii ay soo jeestaan aadaale abshir walaalayaal iyo waalid mudanayaal iyo marwooyin taariikhdu way soo celinaysaa maanta Soomaaliya waxa ay maraysaa waqti adag oo u eg waqtiyadii ay soo baxeen hogaamiyayaashii hore ee beeshan oo aan hadda xusnay waxaa la joogaa waqtiga u turista iyo u naxariisashada isdabcinta iyo jeclaanta qaranka Soomaaliyeed Soomaaliya waa tabar daran tahay waxay u baahan tahay mudulood midaysan oo horumariya waxaa jira wax la dhaho tintii Mucaawiya waa halqabsi iyo xigmad laga hayo Mucaawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu anhu oo saxaabi ahaa wuxuu hogaaminayay adduunka islaamka 40 sano 20 kamida wuxuu ahaa duqa magaalada dalka Shaam la yiraahdo 20 sanana wuxuu ahaa amiirul mu'miniin waxaa la weydiiyay sida ay ugu suurta gashay muddadaas dheer inuu hogaamiye ahaado wuxuu ku jawaabay hadalkan taariikhda galay ee saldhigga u ah siyaasadda toosan wuxuu af carabi ku dhahay innii laa adacu sayfi xaytu yakfiinii sawtii walaa adacu sawtii xiina yakfiinii lisaanii walow anna baynii wa bayna annaasi shacratun man qadacat
كانوا إذا مدوها أرخيتها وإذا أرخوها مددتها وحودها وحانكو قاري أساس أنيقا مال أو كفلن يهي إن صون كو إدبيو سيفكم مدفناي ماشا مدن إن سيفتا لو دفتنا صون كم مدفناي يوداي أنيقا إيداد كان نودي حيا وحان نودي حيا هدي أي سيدتين أو كليهين مقو إيسو حرير كاس وحينا يا هدي سو تاغان وأودبعنا هدي جيتان وكذب وذايا دولقاد إيه حكمة تصالح سياسات نوقف في الواقع ولا ليال إيه والد مدن يال إيه مروين وحن هريا له ولا بدن ولا ربع إلا وحقيقيو ولا تشبه حق أو تابنايا لنعكس أو كمد أجرتان كباش مدلود سيدا أمنيكا سياسة دقالها دقنك بلشدة واتكم ما سنتين فرصة عاد إيه سيسان هي فرصة عاد سيسان مؤسسة معلم نور إن أي مرتقادو قولنا أوفيدسو بهوين تام بركيسان مدلود الله دوره إلهي كدغو شر خير قبا او غوليستا دعاء يفرتان كان امام كاسكله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته